waxaan ka hadlaynaa Soomaalidu waxay tiraahdaa siro talama noqoto arrintii hore u qalloocatay oo wax laga dhoodhoobay oo la rabay inta dambe oo hadda maaragtay weli aan qanacsanayn in la qanciyo in haddana ekfashin lagu abuurayaa noo muuqata saddex qodobba waxbaa ka qaldan wixii lagu heshiiyey marka hore waa lacag maray waxa lagu heshiiyey baarlamaanku inuu cadaada ku shaqeeyo 6 biloodna maamulka dhan ku shaqeeyo dib u heshiisiintana ayada lagu galo waxaan aragnaa in hadda dhuusan reeb laga bilaabay baarlamaankiina soo xaroodo la yiri inta waxa ku taliyana ragii madaxda ahaa oo markii hore maaragtay barnaamijka lagu idayo weeye xildhibaanna la ruqsaynayaa la yiri kuwana waa la qorayaa cidda marka dadka maamusho ma garanayna cid ay tahay dadkan ay geystay xildhibaanada qabiila lagu geystay awood qaybsiga lagu galay dabadeedna waxa la yiri ragaan inta meel fariistaan ay yiraahdeen hebel iyo hebelna aan ruqsayn hebel iyo hebelna aan qorno taasna waxaan leenahay waa qalad kale waxa lagu talagalay marka galmudug in la baabi'iyo saasaan u aragnaa haddii ay raalli ku noqdaan dadku in la baabi'iyo annagu kama ahin raalli in la baabi'iyo laakiin qaladna inaan qaadanana raalli kama ahin waxaan leenahay inta ha laga fakero ragga sirta wado inta dadka wuxuu sheega hoos haddana shawrka hoose u gelayaana in maanta aan waxba qarsoonayn oo wixii la sheego daqiiqadiiba la helaya ha ku talagaleen annagu intaasaan leenahay waxaan leenahay wanaagga ha lagu socdo ha laga daayo qayaanada dadka مسؤوليات با إذن سارن مسؤوليات إذن سارن كل رقم وحلو ويش يا وحكل رقم واحد ضدك وشيكتين كل صعدة هذا ضاق مرتان واشقاء دينك إدين تعالى ندين لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شركة وحلو قصة بسية هي ما دام أنها يضيعش الريح حاج السليمان ما هن عدد كلية ملك استوى أن شوق نبأ وعن طبعا الظلم ظلم قال الريح حاج السليمان تبتين بان هذا كان شركة إلا قبطمان تكياني وحو يا شركة سو ballan baa la lahaa ballan darana waa diin daro markii hore waa la tilaabsaday sidii la doonaa la yeelay waa la soo laabtay waxba la kabkabay waxba la dhameeyay xal baa la gaaray waxa keenay marka shirka wixii waa dhamaadeen waxa shirkan keenay shirka dhuusam reeb lagu qabtay ee dulmiga ah ee dib u heshiisiintana lagu aas-aasay baarlamaankuna yiri hay isugu yimaado yaa kalifay shirkan in la qabtee warkaan war dhamaysan buu ahaa marka annagu waxaan ku qasbannahay dadka aan mas'uulka ka nahay maadaama aan nahay odayaashii cidda odayaasha u ahaa ee lagu gambanayay inaan geedna ku gamba karin wixii jira inaan u hadalno maadaama aan mas'uuleen nahay ma noqonayno mas'uul haddaan madaxa ka qarsanno wax beesho ku looga qaldan yahay haddaan ka gambanno mas'uul noqon mayno waa inaan u hadalnaa oo aan taabannaa meesha wax ku jiraan shirkan saasaa lagu qabtay mana aqbali doono mana yeeli doono mana aqbali doono geed dambana lala geli maayo cadka ay leeyihiin baanu doonaynaa ayadaan rabnaa mana ka leexanayno waxa intaa weheliya sida walaalhay u sheegeen baarlamaanaan bedelay ayagu shaqalba kuma leh annagaa bedelkeeda leh annagaa keenisteeda leh war hanagu qaldaminine waxbaan garanaynaaye hanagu luminina intaasiyo nabadgelyo maadaama aan nahay meeshii galmudug hooyada u ahayd aabbahana u ahayd oo lagu dhisay oo lagu aqoonsaday oo tilmaanteeda la garanayo oo buuxda wixii annagu aan haddii la yiraahdo ka hadli weynana aad moodo kuwa kale inay nagu fiirinayaan oo isleeyihiin odageedii ma ka hadlo hooyadeedii ma ka hadasho intaasaan ka hadli doonaa waxaan uga hadlaynaa galmudug badbaadadeeda haddii la yiraahdo wax ku oolkeeda jiritaankeeda oon dareemayno dheeli in la gelinayo lagu tumanayo nidaamkeedii oo uusan ahayn siday ku dhismi lahayd ama ku dhaqmi lahayd sida ay hadda ku socotaa waxaan ka hadlaynaa galmudug waxbaa looga heshiiyey wixii looga heshiiyey oo beelaha galmudug dhistay oo 11 beeloodii ku heshiiyeen oo ama xeer hoosaad ahaa ama haddii la yiraahdo wixii xalka ay ku heshiiyeen oo xibin walba qolo qaadatay oo meel walba la iskaga ogaa ayaa la isdaba marinayaa marka koobaad xarunta baarlamaanka koobaad oo galmudug wuxuu ahaa cadaado dib u heshiisiinta beelaha galmudug dhistay koodana waxay ahayd in lagu heshiisiyo oo la iskugu keeno cadaado 6 bilood muddo ah ayaa la siiyey waxa la siiyey xaruntii baarlamaanka waxaan rabnaa xaruntii baarlamaanka maadaama nala siiyey baarlamaanka
iyo dib u heshiisiinta kulligeed in lagu galo Cadaado waxaan dareemaynaa in meelo kale loo wado meelaha kale loo wadaan aysan munaasab ahayn oo ay maroojin tahay maroojintuna dadku waa dad muslina waa dad haddana wax qayb yaqaana qof waliba wixii la dhaliilayo oo la qalloociyo waa garan karaa waxaan rabnaa baarlamaankii Galmudug inuu iskugu yimaado Cadaado xaruntii loogu talagalay meeshii kale la leeyahay waa la geynahayaana qoordadab weeye qoordadabkan ka hadlaynaa qaab xumadan ka hadlaynaa badbaadada Galmudug baanu hadlaynaa waxaan rabnaa haddii la yiraahdo Galmudug beelaha ay ka dhaxayso dhanina sidaan u garanayna inay noola gartaan afkii koobaad oo lagu hadlayna beesha Cadaadood ay ku hadli doonto beelaha kalena aan ka sugayno wixii qalad ah inay diidaan wixii qaab lana qaataan qof aan caayayna ma jiro qof aan xumaynayna ma jiro Galmudug aan soo dhaweynayna Galmudug ay soo dhawow waxaan leenahay odayaashiina keensada xildhibaanadiina keensada gogashii nabadeed ayaan ku baaqaynaa dib u heshiisiintana walay ballan noo ahayd waxaan rabnaa inaan ka hadalno arrimaha laga dhawaajiyay meesha la yiraahdo Djibouti lagu soo gaaray xamar la soo mariyay Cadaado soo gaartay xoolaha markii hore khilaaf ka dhashay khilaafkaas oo aan lagala tashan ummadda Galmudug la soo go'aansaday dad gaar soo go'aansaday go'aankiina war ka yimid dabeedna laga wada hadlay labadii madaxweyne federaalka Farmaajo iyo madaxweyne Xaaf halkan yimaadeen go'aan la gaaray go'aankaas uu ahaa in Galmudug lagu soo dabaalo isafgarad iyo nabad iyo heshiis go'aankaas wuxuu ahaa baarlamaanka saldhigiisu inuu yahay Cadaado inuu yahay loo guri dhisayo go'aankii sidaas ahaa waxa kale oo heliyay in lagu shaqeeyo intii dawladda la soo dhameystiro aad lagu shaqeynayo 6 bilood go'aanka sidaas ahaa waa soo dhaweyn waan u gogol dhignay waan u diyaar garownay gogosha afsan intaas anu ku sugayna waxa dhacday dhul sarbe loo bedelay waxaan leenahay ballantii iyo mucaahadadii iyo heshiiskii la galay yaan laga harmarin waxay ku khayroon tahay ayadoo la fuliyo wixii lagu balamo cadaaladana deeqda wax istaamriyaan ma deeqaan waxaana qabnaa wax ka soo baxaya fashion maan wax kale ka soo baxaya inaysan jirin waxaan soo dhaweynaynaa go'aankaas oo hore u qaadanay in lagu yimaado gogashii afadsan goolnimada afadsan lagu wada hadlo dib u heshiisiinta lagu dhameeyo shuruudihii la madaxweyne lagu dhameeyo taa halkaas aan ka doonaynaa midda labaad Galmudug 12 qabiil yaa dhistay shuruuc ay ku dhisteen heshiis ku dhisteen awood qaybsi ku dhisteen baarlamaan baa lagu sameeyay markii hore 89 buu ahaa waxaana soo gaartay xamar baasha lagu fargeliyo dhuusamareeb waxay noola muuqata qalad aad baan wax silaan meesha qalad baa ku jira nin wala aqoonba jufo waliba iyo beel waliba ayada askale madax banaan wixii uga qayb galaya baarlamaanka ayaduna ka santo in la maamulo dadka waa laga qurux badan yahay waxaan leenahay oo madaxweyne arintaas sidii lagu heshiiyay ku soo dabaal u keen sidaas khayr ku jira safar gaadka iyo nabad usaas ku jirta Galmudugna sidaas ay muxuu ahaayay ku ahayd heshiis ku ahayd sidaas ay xaruntooda ahayd waanti markii dambe ugu dambeeyay labadiina madaxweyne ku ansixideen hadii laga qaaday oo meel kale la geeyay inta aqliga waa garantaa wixii ka soo bixi kara tushuusa ka soo baxdan ma aha maanta Galmudug dan ma aha danta Galmudug wixii lagu ballamay in lagu fuliyo ay ku khayroonta waxaan ku soo gabageynayaa waxaan deeqo nabad waxaan deeqo cadaalad waxaan deeqo wiil heshiis laga bixin intaas aan sugayna